dambeyntii waad imaad soo dhawow. waa dhawa aniga ayaa halkan kugu balawiyey waana ku xumahay maadaama shaqo adag ku jira aan kaa soo bixiyey. aniga ay u baahnay inaan kula kulmo aad baan kuu raadinaya. ma kula fiicanta waxaa samaysay? ma kula tahay wax qurux badan waxaas? maaday kula fiican tahay waxaad ii ku dhaqaaqday iyo waxaad samaysay isog tahay. hadday kula sii joogi lahayd gabadhaas soo ma ogin inaad gacantaada gaarsiin lahayd. iska dhaaf wax kale aabaha ii dhalay adigii sodogaada ah waa xishmeen wayse. wuxuu isqabto 90 hal uu dhex tahay. dagaal haddii uu jiro ma ahan hata aabaheed inaad soo dhexgelisay. aabaheeda garab ayuu ugu baahan tahay inaad dhahdid gabadhaada waa family ahayd lahada adaa dhalay hataa duqi dhalay adigii sodogaada ah guriga kasoo bixisa. dhima laha taas anaa xalisan karo waa faamilkeyga daan burburiye anuu ma xalisan karo laakiin adi midda aad ku dhaqaaqday moogtahay waxay tahay dhabarkaad iga toogatay uma maleynayna inaad dhabarka iga tooganaysa mana kaa filinayn. saaxiib aniga waxay ila tahay ilaa hadda wixii ugu wanaagsanaa qof bini-aadan sameyn kara inuu sameeyo. waxaan sameeyey dhibaato adiga aad sameyn lahayd ayaan dush u saartay aniga. gabar adiga aad dhib gaarsiin lahayd ayaan kaa soo sleexiyey. sodog adiga aad isku ceebeen lahayd oo aad wejigaaga iyo sharafta aad agtiisa leedaha dhumin lahayd ayaan kaa soo afooyey. ma kula tahay aabbaha dhalay gabadhaas adigoo canaanaya ama cay waxaad wuxuun dhahayo inuu arkaayo ku farxayo? sodoguu kula nool yahay saaxiib waxaad wada cuntaan. saaxiib waxaad i tusay inaan hanti leedahay waana i danaysiis taasna dhimanaha adduunyada ayaa asaaska ha ku fikirin hanti waxay tahay malahan hantida aad sheegayso waad igula nooleen. laakiin waxa ku dhaqaaqda maxay tahay dhaqaaqashada meesha lagaa rabay inaad wax toosisid aad guriga dadka ku reebtid oo niyo waxaana qaldanay kaale waxaan waxa u samaysay meesha lagaa rabay waxaad samaysay fal aad u xun. staro kaama filinaynin inaad midaas ku dhaqaaqayso inaad gabadhaydi aabaheeda inaad gurigaaga iska geystid ana gurigaada iga saartid macala shaqadii aan shaqeynaya xitaa hadda ilaahadid qofkaas ha laga saaro maxay tahay cadownimada halkaas dhan adii qabtid. maxaan kaa galabsada aniga waa qaldamaysaa. ma qaldamo adiga waxa qaldama waa qaldamaysaa sultaan. shaqada ani kaama saaray taas adiga gooniyaada kuu tahay taas adiga booskaada kala heshiinayo. qofkaa mas-uulka ka ah aad la shaqeynaysa meesha mas-uulka ah ayaa taas kala hadlaysaa. aniga arrinta guriga wax iga wariso waxaas dhan waan soo ogaa saaxib waxba ha isoo lalaabin falkaas waad ku dhaqaaqday. qofka intii la hor imaada ayaa waxaas loo sheegaa mise wejigaa laga toogtaa ee gadaa lagama toogto. nin walaalkey ba ahayd oo maanta isdhahay asaa ku garab taagay. runtaa waxay tahay inaan nasteexaad u qalbin. ma isweydiisa ma kula tahay inaan nasteexa qalbin? haddaan u qalmin mise leedahay ninkeedaa tahay booska nimadana buuxin kartaa. ilaa aflagadan kaa dareemaya. aflagada maaha runtaan ku sheegaya waa runta ayaan ka hadlayaa. aflagada maaha uma qalanta gabadhaas. ma adaa qalmo waay anisekeedaa ani gabadha gabadha sheego wanaageedan ka timaya dhibaatana gaarsiin marabi. ma taasa wanaag daadaan garanayaa waxaa horteeda gacan u qaadi karta gacantana ka qabtay. gabadha qofka igu xusmeen waa gurigeyga aan keenay kusii dilaayo qof wanaagsan miya? xisaabtaada ku darso labada isqabta saasha ba isdagaalan. ha isdagaalaan xaggee joogtaa? guri alle ma joogtaa? waa may gurigeyga jooga gurigeeda kama hadlayo aabaheeda meesha joogaa aniga saaxiibkaa meesha joogaa. saaxiib waxaad ku dhaqaaqday ana horta kule waxaan ku qanacay maaha taasna waa toogasho ma fahantay. arrinkaas adaa ku dhaqaaqay laakiin dhamaystirkiisa anoo ii yeelaa. runtaa waxay tahay nasteexana u qalbin. dheeshaa bilaad anaa dhamaystiraha ka walwalintaas. talo xagee ka bilaaba gabadhii ma tagi karo way xanaaqsan tahay adeerka waa inuu tagaa.
كاواي ساعة وعليكم السلام ست هذا في عنا هاي عام ايش كان هذه ما حتى فريسم ترتم مستاهي ورا سنة ساعة أنا شو أنت كيف هذا فريسينا كور هذا ما دقي استايشة ما يبغى كام مستاهل لكن أنا والله هذا اي سو فريسة اي ما انت ما انت ماشي انكو كنت هذه قلت من حيث هذا دمتي كنت ودريبي كرتها qalad weyn waan ka galay waxaan u imaaday qaladkaas inaan ka raali galay arrimo kale aan ka wada hadalno waa haddii aad iska cafinaysid waa haddii aad i cafinaysid wax laga cafiyo horta ma samaysid dembigaad gashay iyo dulmkaad ugu samaysay iyo kaad gabadheeda ku samaysay ma ilowda adag horta markas kulaal baa ihaye laakiin waxaan ogaaday inaan qaldanahay waan reerkayga meel cidla uga dhaqaaqay inkastoo saas ay tahay xanuun baa ii keenay koley adigu baa dee arki lahayd caddeyntaas oo aan lii tusin waad guban lahayd booskeedaa taagnaan lahayd laakiin ha ahaato laakiin maanta waxaan diyaar u ahay reerkayga inaan xalisto taasna adaa garab uu siin karo adeer adeer dhegeyso gabadhu iyo reerku wax marna la tuuro marna la soo cesho maaha waa run laakiin gabadhaana waxaa tiri maanta caddayn iyo waxaan jira qofka bini aadanka wuu khaldamaa la alla hadday dhacdo sax u qaldamaa carab iyo ilka isqabtaan marka laakiinse gabadha iyo aniga taad nagu samaysay wax inaba maskaxdayda geli kara ma ahayn waa run adeer laakiin ma ogtahay adiga meeshaan aad iga tagteen inaan nafsadee xitaa nin wanaag samaystay ma aadan ahayn waan ogahay wanaag ma samaysan haddana nin dadkii iyo ehelkii iyo odayaal watana ma tihin keligaa oo qalanaa socda sababtaasa maanta xitaa gurigan iska fiira isdhahay nin baa meel igu soo taxeela guri hebel bay tegin maadaama intanoo maalin aan raadina meel ay joogtay hari habeen ma seexanin qaladka idinka galay ayaa rabay inaan idinka raaligeliyo aniga wiil yaroo gabadheeda qaba aad tahay haddii aan saas ahaan lahayn maanta gacan ayay kaa dhici lahay waan ogahay in gurigii lagaa saarana oo gurigii aad deganeed lagaa saarana macal shaqadii xitaa laga saaro shaqada lagaa saarana waa nafsi aad gashay aad inta bilaash lagugu yimid lagaagama saarin beenta maaha laakiin dee haddaan ka qoomeen marka wax wanaagana maada samaysa haddii gurigii lagaa saaray iyo meesha aad deganeed lagaa saarayna waa waxaad adigu sukantay nafsi aad gashay waan ogahay adeer wiilka aad u shaqayn jirtay oo aad gurigiisa deganayna waa wiil fiican oo annaga gurigaan isdejiyey oo waa wiil wanaagsan nimaan wax ogeyn ilaah macdaa alla intaantada falkan dhacay dhibaatadan dhacday reerkeyga inaan kala tagno mise aan isdhihi karo aan isku dhacno aan buriyo waxaan isdhihi karaa ninka ka dambeeyno asagii aamus idan ma qabtid hore hadalkaas mar dambe ha kusoo celin horta adeer yar fariiso wada hadlayna bismillaahi halkaasaa bilowda haddana maya ninkan maxaa laakiin waxaan saan dhana u difaacaysa adeer wanaaggeed adigu dhumisay buu ninkaan hagaajiyey waa ma ninkii sanogaan ugu samayso ma tiid wanaag muu samayn dambi u gal rabo inuu iska tirtiro ma fahanti adeer dhegeyso ninkaas arrimihiisa ka bax okay hal aan kuu sheego marka ninkaas arrimihiisa saad ku aaminaysa hal waxba ha iga sheegin ninka arrimihiisa adiga ninkaas afkaaga ka daaba ninkaas ha ku soo celin afkaaga hadalkii dunta allah ka hadal bas adeer ma jiraa magaalada aan joogno qof inuu kusoo wato gurigiisu ku keenay ku dhahayn gurigan ku noolo wax walbana aan weydiin qof ku dhah ma jiraa bilaa sabab la-aan ma jiraa seebiis u jirin soo qof muslimoo ilaahay yaqaano islaama soo maaha okay qofka muslim dulmkaad nagu samayso ogaad okay dulmiga ha ogaado laakiin kuma hayn kara bil ka badan gurigiisa inuu ku caawiyo meel ku raada laakiin degnaaw forever kuma dhihi karo inaad fikirtid weyn baa tahay maya ninkaas hadduu doono waa nin nasab hadduu doono gurigiisa hana siiyee adiga ninkaas arrimaysa ka bax dantaada ka hadal adiga taada ka hadal waxaad u socotay waxaad igu timid horta waxaan u socday waxay tahay ninkaas tiisa mar baad fahmi doontaa hadda kuleel baa kuu jira ma fahmaysi hadda waxaan u socday inaan soo booqdo xaaskayga iyo adiga oo aan idin raaligeliyo waxay tahay kolley ayada si oo basid iguma cafinayso si sahlan iguma cafinayso anaaba ninaan ku cafinayna waxaad maranaysaa ayadoo dumar ah maxaa ku samayn kartaa waad manaysaa hadda ku aragta maanta adeer aan intaas waxaan u imaaday maanta waxaad doonta inay u ciqaabti
lugaha hoostooda inta zaman horta waxaan u baahanahay inaan ku raali geliyo 114 iga raali noqo wax walbo qalad aan kugu sameeyay ayaan rabaa inaan maanta ka raali geliyo waxa doontana waad u qaadi kartaa mafad iiso aniga nin rag oo raalli ahow 14 boqol weligeed waa la israali gelin jiray صح laakiinse taadu way ka duwan tahay raalli ahowda ahay صح gabadhaada khalad baad ka gashay qalad weyn baan ka galay xaal iyo xumayn adaan wadin ta iska timaadi iga raalli ahaadan حالي حمين ديار بانو أهي وحلو حكومة ديار بانو واسع أنت أيضا رالي جنو قنيسو واحد دون تانو سمينا aniga nin raga waaba ahay waa iska kacafin kari صح. wax kastoo yimaado صح. laakiinse gabadhaada si ku cafinaysa aniga ma ogiba ما بيعرفينيسو لكن سيبو عارفين haddii ku cafin weydo dee weji kuma yaalo aniguna ma ku khasbayo بين ما هي ما خص فكرتي لكن أنا وما ندار كذا سمينا يا أنت قبل ناس نكاس أكفر يدو ما بيعرفينيسو محمد. أنا واسطان war adiga sitaar maxaa ugu rafanaysaa adeero maxaan تيجي يقدر موياني وجه كلام ما له هندي ninkaan islaamka ilaahay yaqaano isku toosan afaarihiisa ka bax adeero أخوانا كوجود من maxaa ninkaan ilaahay maanta kaa siiy أنا كان وحن أمسنا هاي بقى aniga ninkaas haddii aad xumaan u qabtid anigana xumaanta waad ii qabtaa ما حد عهدنا ما حسوا كهذا war wiilkan waa wiil aan adeer u ahay oo wiil wanaagsan waaye oo wiil muslim oo maasha allah ilaahay yaqaano waaye أديك وناجا كون مغضو لكن أنا حماتي مس إن تقولوا كويس أنا أمسنا مفهمت تاسو waxay u kalifayna reerka dib u soo raadiyo aan ina raali galayo wax walba liyo xukumo raali baan u ahay inta ninkaas aad joogtaan maya ma fahant maya taas adeer inta dhigtaa geliyo dhagtaana kama dhaadhicinaya markaa akhrisanaya ninkaas Ilaa hadda- ninkaan inaad ilaa wiilkaan iyo aniga hadda- isbaadisa ma u timid mise inaad reerkaaga xalisataa u timid reerka ina xalisto iska dhaaf laakiin maskaas ina idinka badbaadiyo ma fahant aniga labadiina adaaba masku arkaad mas ilmihiis cunay ma jiro waa cuntay haa ruurtaadi reerkaaga waaba cuntay ma cuni karo si kasta u xumay ma cuni karo ma fahant midda kale telefonkeeda waxaa lagu soo diray iyada u dirtay mis qofka u Adaa diraa ma dirin adaa diraa allahi ka alla gabadhaad waxay tiri arrimahan oo dhan siduu aniga ii xumeeyo buu waxaan u diray asagaa ka dambeeyey may ninkaan arrimihiisa waxaas horta ma jiro adaa dirada aniga leedahay ani allahi ka alla ninkan ani maalinkii baxay habeenkii soo galaa uma maadaama gabadha baaswarkeeda aqaano way aan reerkayskaaga duuna waayo falkaas oo u dhaqaaqa okay labadeen waan aqaana ogahay dee guri waa la badan yahay laga yaabo iyadoo baas furan inay ka tagtay oo laga faa'iidaystay uu maskan ka faa'iidaystaa laga yaabo uu qof kale soo gala ka faa'iidaystaa laga yaabo ma faham adeer marka maska aad maanta oo dhan naga dawooday horta bal iga jooji maska halkaas ku dhaaf dhimala xumatiisu arki doonta adeer ma faham hadda kaama dhaadhacayso laakiin xumatiisu arki doonta wanaag uu kaa samaystaa kuu muuqato laakiin gadaal uu kaa oysiin doonaa saan ugu ooy maraad u oyn doontaa ma fahant maxaa xal hadda xal waxaa ah in adi isku duubnaa saan familkan aan u soo celin lahay ma fahant reer dumidda waa xanuun inaad i garab istaagtid aan kaaga baahanaa maanta adaa caawimaad kaa soo raadsaday ma garat waxaad ugu caawin karta adigu waa ani maanta aduma garab kaaga baahanahay qof kale maanta weydiismana gabadhaasna way xanuunsan tahay aniga waxaan waa kula qaban lahaa laakiinse aadaad usoo daahda adeer wixii awoodaydaana kaala hakrin maayo laakiinse haddii gabadhaas ay ku diido aniga qofka ugu khasbaya yaab aabi maaqan wax keenay bal iska soo fariiso عارفة دي ما يالي كعبة بنانك بح walaashina kula hadlaa أنا أدي وهذا نجمة دحية كعبة حية ماذا حابي حني أنت نبوقي قيلي سوف soo fariiso horta soo fariiso هاي kii fariisa borata xaamilaa tahay ورحملها أنا ما نقعني حتى الناف sug aaba sug kan waxba isku dilina kan dar alluba ka dilan yahay dilna هاي يجا بحيمة أنا هنا أركبه وما بعني دلقات كي قدر ماني ما كان سجار كفرديني إيمي يالو الباب كفرين يجا صوب بحاجة قعمتي أنت أنا قعنا هذه
هالي صدق ايوه وجهي ودنبنا هنوركين قم ايام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنا محمش كنا غريغنا بار سبحان الله wax keenay ma nada soo tilmaamay meel laga ma helay maxaad ugu yeertay ninka qurunka ma u yeeran aniga asagoo iska soconay uu yiyo maxaa guriga keenay wax keenay aniga ma aqaan wax soo tilmaamay star baa soo tilmaamay ma aqaan star intu guriga keento ninka nayna u yeero aad baa loo khaldan yahay maanta sarna ma rimaadka maxaa kala isma iska bixisan muujoo ku yeelaabo ninkaas inuu isku xumaadeen kala ma aqaan maanta dhan star buu ku dhaganayo ama star ku dhaganayo ama qof kale ku dhaganayo anaga waxba naga magin way noo kala dhamaatay wax maanta meesha inoo yaala ma jirto xataa inoo kula sii fadhiyo kula sii hadalnaahin ayaa bisteeji waxba marka gurigaas yuusan iman la hadlin حتى هذوك كلها هذا سنتها كقايم أبو هذا أني يعني وناجينا دوني سب أيوة وحبا ديجا سكر أنا أقول بالله ما قانون مكرية ديكرنا نكحون وقاضو أيوة أيوة مرد مقطع لكن سأبو نكاجي ولي والنكاجي تاني كاج ولي كان متجين بس كامس أنت عندنا يكلي قسم وقت إذا مركا توصل من بقادنا أنت كل أمانك هيقول تقال أمانك وقالوا قلني لا هي كار المهاير أنا أسفكر صدور هذول هاي نبدي عني كل كانوا يسألني نقطي وجهيس قدام بين وجهي أركم برا من أبهني سبحان الله ما كان الله ما كان أركم الله حاسس يطيني يتونو ولا دغمي إلا إنك بنتي أيا إيسو صور مرسا سابا صور دويسين سا الله هذا سفر يكفر يسين سا يا بدي سوى أحسن الولاد كل ده مولاك بقويا لا مولاك بقويا لا محوم مسكين كلها أنا أقول مركز سدو كلها اللي وضو جيده موجي بقول تمسكتالو كودي تكامل شونيني وجهنا نوما دغن وانا دي اسقف داعد ابو الى هذا marka anigana de qofti gurigaaga kugu yimid lama xumaan kareemo saga ku wanaajiye iga daawarkiisa iga xid mar dambe guriga ma soo gali karo satarna waan sheegay gurigana waan ka taginaa waan iskaga taginaa gurigan oo dambe gurigan uu ogaaday 24 saacadood noo iman anagu guri kale taginaa ama reerkii ku noqonina hatta satarkana aan dul joogina satarka laftirkiisa aan dul joogina insha Allah baaye sirjay